السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaad khaliiji cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sida loo nashqadeeyo ID card qurux badan company school ama jaamacad formatka la qaadanayo cabirka saxda loogu fadhiisanayo ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah waad ku baran doontid Adobe Photoshop cashirkan waxaad awood u yeelan doontaa insha Allah inaad fadhiisin doontid dhammaan cabirada ID cardada qurux badan inaad samayn doontid insha Allah waxaa laga yaabaa sambal inaan sameyno laakiin sambal ka qurux badan inaad isku daysid insha Allah haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay ugu faa'iideystaan muuqaalada mar walba idin soo gudbino waxay noo tahay dhiirigelin inaad channelka support gareysid asxaabtaadna la wadaagtid insha Allah kusoo dhawaad cashirkeena markuu ugu horeyso Photoshop markaas aan soo kicisid ID cardka laba qayb loo qaybiyaa mid jiif iyo mid istaag hadba waxay ku xiran tahay midka adiga rabtid hadda waxaan sameynaynaa mid istaag waa isku mid cabirka la gudinaa hadii jiif rabtid new dooro meeshan cabirka centimeter ku doonaado waxaad dooranaysaa istaag maadaama uu yahay 5 times qaybta hoose 8 cabirka waa ID card waxa waaye widthka hadda 5 aan kaleeyay height-ka hadda 8 ID card ayaad qoraysaa front save dheh ama control 0 dheh kadibna control O dheh ama control 0 kadibna ID card logo okay logodan soo gashay inta keenso meeshan isku mar walba cabirka resolution-kiisa 300 inuu ku yahay okay hadda design adiga aragtid taas faanaysan kartaa okay shape soo qabso qaybtaan soo qabo inta keenso colorka hadba waxay ku xiran tahay logadaada layers ku dhufo qaybtaan color iska dooro okay control 0 leh kadib center ay dooratay kadib qaybta kore control T leh calaamadan doo switch dooro switchka wuxuu ka caawinaa shape-ka inaad gidgidisid ama kala celisid qabo enter control J leh ama alt drag samee qaybta hoose dooro color bedel hoos hadana control J leh waxaa rabaa labada layer ama shape-ka difference u dhaxay inaad arki kartid insha Allah okay shape-kan hadda ugu dambeeyo waxaan rabnaa drop shadow waxa waa qayb yar inuu kugu soo bandhigo click si waad arki kartaa drop shadow markaas soo qowtid colorkaada rabtid opacity waa samayn kartaa opacity hadda maxuu jeedaa geeskan wuxuu leeyahay shucaac inuu soo galay okay qaybtan tan korna waa samaysan kartaa double click dheh drop shadow haddii mid aad samaysid mid kale automatic loo qaadana okay control J kadibna drop shadow hadda u baadkaan hadda rabtid video waxaa umaleynaysaa dhowr colors kala duwan inay saaran yihiin okay logada iska yaray kadibna qaybtan hoose geeso hoostan gey kadibna 5 dheh ama 10 ama 20 center dheh kadibna control A center kadibna meeshan waxaa ku qoraynaa ama ID cardka sawirkiisa inaad soo gelisid soo select gareyso center inaad dooratid waa mar walba waa muhiim sababtoo ID cardka wuxuu u baahan yahay in la qurxiyo okay colorka stroke dooro dooro stroke-gaasi colorkaada dooro hadda waxay ku xiran tahay colorkaada aad rabtid okay drop shadow waxaa kaaga fudud layerska qaybtan 5 inaad ka dhigtid stroke si uu soo baxo drop shadow copy dheh layerkan attribute-ka right click dheh paste layer style wuxuu siinaa wixii color ah laakiin waxaan drop shadow inaan ku shubno drop shadow okay sidaas ayaa kaaga filan okay haddana waxaan oo dhiman shape kale soo qabso oo wareeg ah laakiin waxa waa shape-kana laga hoos marnaa qaybtan
ID card qurux badan inaad sameyso lagaaga baahan yahay. waxaan dhan ka hoos mari hoos gey, laakiin waa inaad kalarka ka bedeshaa meeshan. kan kalarka haddaa rabtid jaalaha oranjaha ka dhig, auto drag ku samey, cadaan ka dhig, haddana kalarka la sii, ugu dambeyn kalarka cadaanka ku soo celi, sababtoo waxaan rabnaa qaybtaas yar keliya sidaas inay u xirnaato. hadda loogada kor u qaad waxyariis waxaa laga baahan yahay markay sidan ay u tahay aa u qurxinaysid qabo kor u wad. okay, xogta waxaa la rabaa qaybtaas inaad gelisid sidan. control s dheh, qaybtaas save gareyso id card front. okay, sawirka inaad soo gelisaa rabtaa, si fudud file inaad aadid place linked automatic link soo geli. sawir sax ma hayo, waxaa laga yaabaa sawirka saxda inaad gashatid adiga linkiga ahaan oo ku samaysatay. waxay dhisis si fudud waxaa rabtaa inaad ku gelisid right click aa leedahay, waxaa leedahay creating kb mask, sawirkan soo geli weynay id cardka badanaa, laakiin id cardka waxa waaye qofka loo sameynayo waa inuu front ahaado soo jeedaa. okay, textigaada qabso layerka textiga, sababtoo textiga waxaa la rabaa qofka contactiga address wax dhammaystiran inaad ku diyaarisid. sidaas markaad samaysid waxaad simple waaye wuuna qurux badnaanaya insha allah. okay, textigaan dooranaynaa, click ku sii, magaca ku qor Cabdisalaan. mar haddii computerka dhowr fontiska hal mar haddaa bartid automatically kuu soo qabanaa. farta bedel, waxaad ka dhigaysaa blue click, openis regularkan bold click, size hadda waxaa laga yaabaa inuu kugu yaraado markii, laakiin computerka aad ku jirto waxa uu ku tusaa far iska normal ah, waad ka bedeli kartaa, waad ka yareyn kartaa. hadda waxaan rabaa hadda waxaad kadib haddii cabirka inaad toosid ayaan rajeynaya insha allah. alt drag ku samee, haddana director waa agaasim waaye, waa khayar oo iska simple waaye, ma ahan wax sax ah. haddii laakiin hadii meeshaad joogtid waxaa lagu siinaa xog dhammaystiran 8 ka dhig. okay, sidaas markaa u samaysid waad kusoo dhaqaaqaysaa, textiga ku laabo, haddana soo jiid qaybtan, sababtoo waxaan rabnaa intaas inaan cabir ku samaysano. waxaa kugu soo horay id number ayaa leedahay inter, waxaa kaloo ku xig expire date, ama dad qaarkood waxay ku sameeyaan blood group, blood type waxa waa dhiig noociisa, waxaa laga yaabaa bini'aadan aad tahay, wax walba ayaa kugu dhici kara, dhiiggaada noociisa in lasii ogaado. expire date ku qor, hal mid waxaa ka hormari kartaa date issue. date issue waxa waaye 1 sano, 2 sano, 3 sano, 6 bilood, inta adiga aad rabtid oo ku samaysan kartaa maadaama kambaniga adiga aad leedahay. control a dheh, fartan bedel kalarkeeda, waxaad ka dhigaysaa waa blue ka dhig. okay, textiga meesha hadda 8 waa 8 haado, waxaan rabaa meesha lineska hal line inay ku socdaan. tab ayaa leedahay, mid walba tab ayaa leedahay. date issue, okay, qaybtan haddana dooro
ID number waxaa waaye tusaale ahaan kambanigaada magaciisa Alkhaliij waaye kadibna waxaa hadda waxay ku xiran tahay formatka adiga aad degstid eber hal okay fartan bedel colorka micnaha control A dheh black okay control 0 dheh haddana qaybtan tag plastic grouping waxaa waaye EK noociisa waxaa waaye O plus expire date waxaa waaye date issue waxaa waaye 20 Agosto 2022 xilliga la bixiyay haddana 20 haddana title qaybtan soo koobiyey control V dheh 20 Agosto 2023 qaybtan hadda sidaas ku samaysatay control Z dheh control S simple kaas waaye okay haddana waxaan rabnaa kan hadda loogada saas ku samaysatay backside ka rabnaa control shift S dheh backside kan waa iska fudud yahay back ku qor meeshan waxyaabo uu fudud waaye kan delete dheh okay soo qabso qaybtan hoos iska keen kulli qabso okay text aan diyaariyaa jiro insha Allah mar walba resource-ga groupka ku jirtaan ayaa idin soo gudbin doona insha Allah basta garay waxaa qoraalkan haddaad aragtid ID card-kan fadlan xafiiska kuugu dhow kusoo hagaaji waad mahadsantahay ama contactiga ku qoran noogu soo caabi intaas way inta loogada waa bedeli kartaa haddaad loogada waa saari kartaa farta u bedel backside-ka bagi ayaa waxaan ka sameynay qoral frontiga wuxuu ahay kaliya waxaan bedelnay shape-kii qaybtan kor yaala ayaa hoos keenay qaybtaasna korna sidaas ayuu yaalaa hadda loogada oo backside-ka ama copyright-ka ku qoran hoos dhexdan waa keensan kartaa soo weynay save dheh sidaas way insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fahamtay frontiga iyo backside-ka oo ID card-ka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharkii aan ku baranaynay sida loo nashqadeeyo ID card adigoo adeegsanaya Adobe Photoshop haddii aad ku cusubtahay channel-keena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay uga faa'iidaystaan muuqaalada mar walba aan soo gudbino anagana waxay noo tahay dhiirigelin channel-keena support gareysid asxaabtaana la wadaagtid assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh